بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحان ربا إنان أمد الصومال ميل جوغان با سلامو إلى هذا رمضان كريم مركلة إلى إدم داف إيو نحاريس إيو نارتو لاسكحورة إلهي أنو قدقو انت اسمركا كودبا وحان ربا إنان أتعزييو دادكي كود انتي قردا أما داوع كسو قاري أما هانتيكو واي دادتكي حالة داعي انت لمتان الله ونحرست انت كل دعوة عنتان الله عافيه انت انت كويسنا ان شاء الله وبدل خير الله سو غليو runtii masiibadaas walaalaheen la soo diristay saakay madashu waxay qabatay video conference oo madasha intaada badan ay ka soo qayb galeen oo looga doodayay arintaas culayskeeda iyo sidii loogu gurma lahay iyo arrimo kale oo ay kamid yihiin coronavirus oo asaga laftigiisu dhibaatadiisu aad ay u sii baahayso Soomaaliya dhexdeeda iyo sidii looga gaashaamo lahay madasha iyo dadka Soomaaliyeedna ay u istaagi lahaayeen hawlahaas culayska leh ummadda in wacyigelin iyo wixii kale lagu tari karo lagu taro marka madashu saaka waxay go'aansatay in arinta qardho gurmad degdeg ah la fidiyo ummadda Soomaaliyeed loogu yeero inay garab istaagaan walaalahooda iyo mataqaana dawladaha saaxiibada la Soomaaliya oo runtii marka xaaladdu adkaataba soo farageliya sidaas oo kale madashu waxay go'aansatay in guddi loo bixiyo arrimahaas degdeg ah si ay wax uga qabtaan oo la socdaan xaaladda warbixinna waxaa laga dhageystay xubno madasha ka tirsan oo jooga maxaan ku iraahdaa Puntland sidoo kale warbixin waxaa laga dhageystay dad mutakhasisiin dhaqaatiir ah oo madasha ka tirsan oo ayaguna warbixin ka bixiyay arrimaha caafimaadka iyo fiditaanka coronavirus oo ayagana guddi kale loo bixiyay si ay uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa ama mataqaana dadka loogu abaabuli lahaa inay qaataan fariimaha caafimaadka isla markaasna loogu gurma lahaa dadka dhibaatada ka soo gaartay marka waxaan mataqaana ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba labada arin oo hadda midna saaka dhacday ama xalay iyo midda bariyahan socoto adduunka aan la qabnaba in loo istaago wax ka qabadkooda ummadda Soomaaliyeed wixii lagu yaqiin oo isgarabsiga iyo isgarab istaagana laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeedna ay mataqaana marxaladaha adag waxay u baahan yihiin in loo waajaho si ka duwan sida xaaladaha caadiga marka dadka Ilaahay wax siiyay inay bixiyaan waa bil Ramadaan in laga faa'iideysto zakooyinkii sadaqadii in looga faa'iideysto oo dadka ku dhibaatoobay labada musiibaba loo gurmado Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka idin saaro gaar ahaan taageerayaasha madasha waxa la rabaa inay istaagaan hawshan dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay istaagaan hawsha coronavirus wacyigelinta ama dadka dhibaatada ka soo gaarto wax ka qabadkooda waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo wiil yar oo Soomaali ah oo runtii qalab caawiya sanbabaha ama habka neefsiga systemka neefsiga caawiya soo saaray asaga laftigiisa in gacan la siiyo aad u mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.